wuxuu isku soo sharaxay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka Guinea 2020. waa fanaan ku dhashay xaaladda loo yaqaano progeria oo ah cudur dhif iyo naadir ah kaasoo qofka muuqaalkiisa ka dhigayo mid leh muuqaal caruureed. waa fanaan si xun loo midabta kooray caanimadiisa ka hor ilaa xitaa heer uu ku fikiro in uu karaahsado nafsadiisa sida uu sheegay. magaciisa saxda ah waa Musa Zandina Kaba oo loo garan og yahay Grambi, Soomaaliduna waxa ay ugu yeertaa Alfanaan Dolly. hadda waa fanaan jilaa iyo shakhsi magac ku dhex leh baraha bulshada. wuxuu xiriir la leeyahay Odoxiyaw oo ah moodaliisate u dhalatay dalka Ivory Coast. magaca Grambi ayay sare u sii qaaday dhanka baraha bulshada iyo dhanka caalamkaba kadib markii uu ninkaani soo bandhigay in Odoxiyaw ay tahay lamaantiisa cusub, iyadoo gabadhaani jir ahaan ay si aad ah uga duwan tahay wiilkan qaba xaaladda loo yaqaano progeria oo ah cudur koriimada yareeya. arrintan ku aadan soo bandhigista lamaanihiisa cusub ayaa saameyn weyn ku dhex yeelatay baraha bulshada, gaar ahaan barta Facebook. dadka ayaana siyaabo kala duwan uga falcelinayay, iyagoo kuwa qaar ay maadaysi ka dhigayeen xiriirka lamaanahan. intaasi kadib waxa ay arrintu noqotay mid madaxa lala sii qabsado kadib markii uu bartiisa Facebook ku shaaciyay in uu Alfanaan Dolly u tartami doono doorashada soo aadan ee dalka Guinea. waxaan cadeynayaa inaan ahay musharax u taagan doorashada madaxnimada dalka Guinea 2020. ilaahay ha barakeeyo reer Guinea. sidaas waxaa bartiisa Facebook ku qoray Alfanaan Dolly. Grambi ayaa hadda lagu soo waramayaa inuu dhisi doono xisbi siyaasadeed oo la yiraahdo xisbiga jacaylka, tixgelinta iyo midnimada. waxaan joogi doonaa Guinea aniga iyo ninkayga mustaqbalka Grambi, madaxweynaha soo socda ee dalka Guinea. waxaana wadaa ololihiisa. sidaas waxaa tiri Yaw ayaa intaasi ku dartay inay hayso qorshayaal siyaasadeed oo iyada u gaar ah. si kastaba ha noqotee, codsiga musharaxnimadeeda madaxweyne ee dalka Ivory Coast ayaa dhowaan laga diiday, dasan ayaana sidaas warisay. Yaw ayaa ku soo qortay barteeda Instagram, taageero buuxda ayaan u ahay saaxiibkayga Grambi, madaxweynaha mustaqbalka ee jamhuuriyadda dalka Guinea. balse Grambi uma aysan suurto gelin isaga qodhiisa inuu ka qayb noqdo musharaxiintii u tartamay xilka madaxweyne ee dalka Guinea 2020. bartamihii bishii Oktoobar 2020 mar saddexaad waxaa xilka madaxweyne ku guuleystay Alpha Conde. musharaxnimadeeda doorashada madaxweynenimo ee dalka Ivory Coast waa la iga diiday, laakiin ma quusanayo. waxaana ii muuqata 2025 musharaxnimadeeda xitaa haddii aynan ahayn madaxweynaha dalka Côte d'Ivoire waxaan noqon karaa marwada koowaad ee dalka Guinea. waana aaminsanahay ayay tiri inay taasi dhici doonto gabadha lagu magacaabo Yaw. lamaanahan sida xun loogu maadaysto xiriirkooda ayaa ku adkaysanaya in cabirku uusan macno lahayn. mar sii horeysay Yaw ayaa weerar dhanka afka ku qaaday dadka ka soo horjeeda xiriirkooda, iyadoo leh waan wada faraxsannahay, waana ku faraxsannahay xiriirkeena, taasina waa waxa ugu muhiimsan. muuqaalka jirka looma xisaabiyo xiriir ayay gabadhaani hadalkeeda sii raacisay. dhowr naqdiyayaal ayaa qiyaasay in xiriirka Grambi iyo Yaw uu ka qayb yahay suuqgeyn ay ku suuqgeynayaan fankooda. si kastaba ha noqotee, lamaanahan ayaa beeniyay wararka caynkaasa. haddaba daawade, maxay kuula muuqataa arrintaani? suurtagal ma tahay in gabadha uu saaxiibka la yahay Alfanaan Dolly ay noqoto madaxweynaha dalka Ivory Coast, isna uu noqdo madaxweynaha dalka Guinea? lamaanihii lagu maadaysan jiray xiriirkooda ma noqon karaan hadda laba madaxweyne oo dalalkooda ah? adigu aragtidaada dhiibo oo noogu reeb qaybta commentiga. sidoo kale muuqaalkan la wadaag asxaabtaada. Rajo Cable TV, the Cable Digital TV in Somalia. 145 kanaal oo HD ah. haddaba ka faa'iideyso qiimo dhimista $25 iyo bisha koobaad oo free ah. naga soo wac lambarka gaaban 344 kaasoo shaashada ku qoran.